ما طلعنا رئيس وزراء الصومالي مدحوينها ممكنسي بيضيع تقييمات 25 maxbuus oo isugu jira 24 rag ah iyo sidoo kale hal dumar ah. Tirada guud ee maxaabiista ayaa sidaas ku noqonaysa 25 maxbuus. waxaa goordhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho laga soo dejiyay 25 maxbuus kuwaasoo maamulka ACC qaatumo ay ku soo wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya. maxaabiistan ayaa sanadkii 2023 wuxuu ku xirnaayeen xabsiyada ku yaala ee magaalada Sool. haddaba maxaabiistan garoonka aadan cadde maanta laga soo dejiyay waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. 25 maxbuus waxaa ku jirtay hal haweeney oo kaliya, laakiin xogta aan helnay ayaa sheegaysa in 25kan maxbuus ee laga keenay laascaanood ay isugu jiraan kuwa xanuunsan, kuwa qaarkood ay maskaxdoodu isbedeshay iyo kuwa markaasi ku soo naafoobay dagaaladii ka dhacay halkaasi. laakiin soo deynta maxaabiistan la keenay magaalada muqdisho ee maamulka ACC qaatumo ay ku soo wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa timid kadib markii Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya socdaalkiisii loogu markaasi magacdaray nabadeynta iyo midnimada uu ku tagay magaalada laascaanood, iyadoona maanta safarkaasi uu ahaa mid ay soo gabagabeeyeen oo dhammaan ay ku imaadeen magaalada muqdisho. halkan ayaa lagu hayaa maxaabiista sida idin muuqata, waxaana la dejiyay mid ka mid ah hoteelada ku yaala gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho, iyadoona wafdigu hogaaminayeen ay maxaabiistii hal meel ay wada joogaan. waxaana loo sameyn doonaa sida xogta aan ku helnay dib u dejin, iyadoona noloshooda ay la tacaali doonto dowladda federaalka Soomaaliya oo markaasi lagu soo wareejiyay. wixii intaas ka dambeeyana waxaa xaaladda maxaabiista ka warbixin doona wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaana Faaduma Cabduqaadir